بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan isugu nimid maanta mas'uuliyiinta madaxweynenimada Jubbaland qaybo kamid ah iyo runtii musharaxiintii golihii badbaadada annagoo ka turjumayna shacabka reer Jubbaland iyo aragtidooda iyo dareenkooda waxyaalaha ku soo kordhay saaxada Jubbaland oo ognahay meesha ay soo martay waxa jira oo aan dareemaynaa niman siyaasiyiina oo runtii Soomaaliya ka soo qabtay xilal qaarkoodna ay ahaayeen madaxweynaha Soomaaliya madaxweynayaal qaarkood wasiirro ka soo noqdeen qaar baarlamaanka ka soo noqdeen inay rabaan ayagoo ujeedo kale halkan runtii siyaasadeed inay kubad uga dheelaan halkan banooni aan sax ahayn in halkan ka ciyaaraan ayagoo runtii ka turjumaya ama runtii dhawaateynaya hay'adaha sharciga federaalka ee Soomaaliya iyo dana markaa runtii 2020 ay kala yihiin taa waxaan soo qaadanayaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo runtii hadlay baan dhageystay wuxuu ka hadlayaa runtii waxyaalo fara badan waxaan xusuusinayaa madaxweynahaas runtii anigu xurmaynaya oo waxa uu runtii soo maray waxaan ku weydiinayaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Kismaayo waxa weeye gobol kamida state-ka Soomaaliya ama gobolada Soomaaliya gobol kamida weeye maamul aqoonsiga heeba ka jiro leeyahay Jubbaland waxa laga celiyay wasiiradii federaalka qaybo kamida ayaa halkan lagu xayiro leeyahay ma iman kartaan waad ogtahay baan malayn wada socotay xildhibaanada laga celiyo leeyahay ma iman kartaan kuwa laga tarxiilay oo ogtahay sharci darro lagu tarxiilay waxa laga celiyay generaallo kamida ciidanka Soomaaliya halkan laga celiyay waxaan ku weydiinayaa marka aad leedahay waa sharci darro in anagana la xanibo waa run uma malaynaya personal adiga hadda wax lagu xanibeynay jirto maxaad ugu hadli weyday meena sharci ahayn dastuuri inaad ka hadasho ka muwaadin ahaan saad sheegtay kuwa lagu xadgudbay ee loo diiday iyagoo aan dambi lahayn halkan qaarna in laga dhoofiyo qaarna la dhaho ma iman kartaan oo wasiirkii duulistii hawada ugu dambeeyay oo ognahay ayadoo sabab la'aan su'aasha aan ku weydiinayaa mudane madaxweynaha ka soo jawaabto waxaan rabaa inaan dhaho meeshan isboilarnimo uma baahno saddex madaxweynaha ka jirta qofkii Soomaaliya ee noo imaanaya ee annaga gacanta isku kana saaraya ee dastuurka Jubbaland iyo waxyaalaha lagu khalday ka hadlaya ama adigu ahaw ama kuwa kala haawada annaga soo dhaweynina laakiin ma doonayno in baaziin lagu shubo shacabka Jubbaland oo dagaal laga rido oo runtii la dhibaateeyo oo wax runtii aan raali ka ahayn la sameeyo oo halkan 2020 dawladda Soomaaliya lagaga waxeeyo anagu ma soo dhaweynayno waxaan leenahay arrintaas waa arrin khaldan dadka reer Jubbaland arrinta aad uga digtoon yihiin aad iyo aad baan runtii uga digtoonahay waxaan leenahay marka Garowe maamulka Puntland madaxweynaha Siciid Dani iyo runtii madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya dad fara badan oo runtii isku sheegay inay yihiin xisbiyada siyaasiga ama mucaaradka oo raba inay halkan u soo qaltaagaan oo burburiyaan nabadda halkan ka jirta oo dadka anaga isku diraan oo ay xabad isku kana dhiibaan oo runtii ay aad iyo aad runtii u sheegaan aad baan runtii ugu xanahay hawshaas aad iyo aad yaanu waxaan nahay waxaan codsanaynaa sharciga in la ilaaliyo dawladnimada Soomaaliya in la ilaaliyo inaan dadka la isku dirin Kismaayo inaan laga dhiganin meel runtii laga duulo dawladnimadii Soomaaliya iyo qarankii Soomaaliya arrintaas waa ka digaynaa ma yeelayno qofkii walaalkaanna u imaanaya ee runtii halkan imanaya ee raba inuu dadkan dib u heshiisiin u sameeyo oo aan soo dhaweynaa runtii asoo ka muwaadina oo qof gooni aan support siinay بسم الله الرحمن الرحيم وسلامتين دمانتين
salaan kadib aad iyo aad baan ugu raacsanahay saaxiibkay Saraar hadalka sidoo u dhigay waxaan rabaa inaan si faahfaahsan u taabto xaaladda maanta halkan aan isugu nimid oo ah nimanka odayaasha ah ixtiraamka badan aan u haynay awal ahaa madaxweynayaal hore iyo niman kale oo siyaasiyiin sheegta iyo xisbiyo inkastoo dalka wax xisbiyo oo badan ayna ka jirin waxaan rabnaa inaan halkan ka sheegno Jubbaland ma noqonayso horena waanu sheegnay xarun mucaarad oo dawladda Soomaaliya qaranka Soomaaliya laga dumiyo ma noqon karto qarankana waa la wada leeyahay Jubbalandna waa la wada leeyahay waxaan rabnaa inaan xasuusiyo saaxiibada u soo kala tartamaya Kismaayo Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed hadalkaaga waxa ku jirta 4 sano ba doorasho dhacda waa ku waafaqsana inta hadal ee aad tiri 90% waa ku waafaqsana laakiin intii baad ku xadgudbaysaa adaa ku xadgudbaya inta 4 sano waa in doorasho dhacda waa sax doorasho kama dhicin Jubbaland madaxweynaha ahayd waad wareejisay maxaad ku wareejisay doorasho dhacday doorasho ma dhicin waxa dhacay maxaan ku yiraahdaa wax alla waxa aad sheegtay ee xadgudub oo dhan ba halka ka jira waxaadna rabtaa xadgudub inaad xalaalayso waxaad rabtaa inaad boob iyo khiyaamo xalaalayso mana xalaalayn kartid haddaad halka hadda timaado lagu fasaxi lahaana oo intaad timaado aad caleema saari lahayd saaxiibkaaga horena waxba uma soo kordhinaysid waxna uma kordhinaysid in lagu celiyaaba magac iyo sharaf laga yaabo inay ku tahay waa ku ixtiraameynaa shacabka Jubbaland uma baahna benzin inaad ku shubto haddaad imanayso sidaasi ka qurux badan inaad u timaaday dameero wado warkaa waa ka soo horeeyay warqadaada ka soo horeysay aad ku taageertay Axmed Madoobe hadda maxaad sheegi intii un baad ku celin Sooma madaxweynaha rabtaa waa isaga iyo ragga kale la midka ah madaxweynihii hore Xasan Sheekh kamid yahay iyo kuwa kale faraha badan ee maxaan ku yiraahdaa badii iyo dhulkii cirkiiba hore u gatay waxaad rabtaan oo Soomaaliya rabaa inaan u sheego madaxweynayaal bay rabaan 20 inay u tartamaan waana qeyr mas'uuliyad bay hadda ku shaqeynayaan inay doorasho aan sax ahayn ay dhahaan waa sax ayaguna taas oo kale rabaan inay nagu sameeyaan waxaan rabaa inaan u soo jeediyo odayaashaas Kismaayo waa dhiman kartaa waa magaalo Soomaaliya laakiin sida aad ku imaanaysaa si ka duwan baa la rabaa inaad ku timaadaan haddaad odayaal tihiin idinkoo odayaal inaad timaadaan baa la idinka rabaa haddaad maxaan ku yiraahdaa si kale oo qaraabo salaan oo imaanaysaan inaad u timaadaan laakiin siyaasadaha iyo waxa aad la wareegaysaan farmaajo doorasho idinkaga adkaaday intuu idin la tartamo doorasho idinkaga adkaaday mana idinka baryay 4 sano inuu xukumo meesha waana dhamaatay suga hala waalanaysa shacabka hala kiciyo carruurta hala kiciyana waa waxa aad ku hadlaysaan baawarka aad hadda ka hadlaysaan waa baawar baagiisa dambe oo qabiil daaranya waxaasina Soomaaliya kama shaqeeyaan shacabkana ma marna habaabin kartaa waxa idin soo jeedinaynaa hatta timaadaana waxba soo kordhinaysaan benzin uba ku soo shubaysaan haddaydan imaaninna waxba soo kordhinaysaan laakiin sharaftiina maanta meel bay u dhacday dhulkay ku dhacday waxa laga yaabaa anigu rag badan oo aan saaxiibahayn oo aan taageeri lahayn inay ku jiraan laakiin maanta haddayba sharci darro taageerayaan soo madax igu noqon ninkaas oo barito maartay xil ugu dhiiban shacabka Soomaaliyeed oo arko marxaati ka noqdo Jubbaland dadkii siyaasad iyo shacab iyo odayaal ku filan baa joogay inay arintooda xaliyaan waxa kharibayana wuxuu fargelintiina banaanka mar walba fargelinta banaankana waxaan u baahanahay in ay dib u istaagto Jubbaland inta waxaan ku darayaa annaga isbedel doon ahaan day one maalintii ugu horeysay ilaa hadda waxaan u qaylinayna war waxaan waa la wada leeyahay la joojiyo miis la isugu yimaado hal la wada hadlo doorasho la wada leeyahay hal la qabto intiiba waa la diiday dhagaha laga furaysta waxaan sheegnay doorasho la wada leeyahay haday dhici weydo doorasho la kala leeyahay inay dhici doonto waa dhacday caleema saar la wada leeyahay haduu dhici waayo mid la kala leeyahay waa dhici Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh iyo ragga kale la midka ah idinkoo Kismaayo jooga ama Kismaayo dhibaato inaad ka abuurtaan haw imaanina waxaan rabaa inaan beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Jubbaland baa u sheego wixii ka yimaada ayaga qaadi doona mas'uuliyadeeda Jubbaland bay isku dirayaan
sii kala fogeynayaan baasiin ku sii shubayaan maxaan ku idhaha siyaasado 20 ay rabaan inay u isticmaalaan waxaan u soo jeedinayaa nimankaas odayaasha saaxiibadaya hadday wanaag u imaanayaan dariiqa wanaagga ha soo maraan hadday rabaan fawdana Jubbaland fawda uma baahna in ku filan bay haysataa waxa kale soo haray waxay tahay 20 baad u socotaan doorasho 20 haddii doorashada Axmed Maxamed Islaan halkaan uu ku afduubay aad taageertaan Maxamed Farmaajona doorashadaas oo kale u qabsan doona idinkoo taagtaagan oo xamar taagan buu 4 sano kale madaxweyne noqon doona ilaa idinka bilaabay laakiin waa in loo soo looqdaa sharciga iyo nidaamka oo la yiraahdo halka hal dhigo maxaad u imaan weydeen maalintii doorashadu dhacayso oo marxaati uga noqon weydeen marka aad leedihiin waan xalaalayn ma ogidin maxaa xalaalaynaysaa warba ma haysaan taasi waa inta waxaan rabaa shacabka reer Jubbaland inaan la hadlayo odayaashiisa annaga isbedel doonka haddaan nahay shacabka Jubbaland dhalinyaro iyo odayaal iyo salaadiin iyo siyaasiyiin gudaha iyo dibaddaba waa noo yimaadeen waana nala hadleen waxayna yiraahdeen waxaan rabnaa in la wada hadlo 3-4 bari u dambeysay markii darbiyada la soo taabtay waa ogolaanay waxaan nidhi waxba kama qabno in la wada hadlo principally mabdi'iyan in la wada hadlo waa ogola waxa lagu wada hadli iyo sida loo wada hadli iyo meesha lagu wada hadli waa xilligeeda waxa muuqata meedinka la khiyaameynayay qoladiina noo tibid mise idinka isku dayeen anaga khiyaamaysan waa fashilantay arrintaasina waxaan rabnaa shacabka Jubbaland isaga isku filan inuu wada hadlo oo xalista wixiisa Sheekh Shariifna uma baahna Xasan Sheekhna uma baahna kuwa kale daba ordayana uma baahna arrinta dayuuradaha iyo waxa ku saabsan taadar fawda ninkii bilaabay bay dhibaataysaa fawdada waxa bilaabay rag halka jooga bilaabay oo sidii saaxiibkii sheegay wasiiradii hawsha qaabilsanaa iyo dad kale oo farabadan ka celiya meesha kuwa isbedel doonka ah xamar ku xayiran oo loo diiday inay kisbaayi yimaadaan sayidku ku imaanaysa waxaan rabnaa marka inaan hadalkayga aan ku soo ururiyo annagu waxaanu rabnaa reer Jubbaland oo nabada reer Jubbaland oo walaala reer Jubbaland oo gacmaha is haysta reer Jubbaland oo kala qaybsanayn reer Jubbaland oo doorasho ay wada leeyihiin wada qabsada reer Jubbaland oo noqda inay iyagu xalistaan arrimahooda waa ka xumahay markii Jubbaland xaaladeeda loo baahnaa inay reer Jubbaland ka wada hadlaan waxay noqotay in dad yow kale laga soo kireeyo degmooyin kale iyo gobollo kale looga yeero shacabka Jubbaland la xurmeyn waay shacabka Jubbaland beel gaar ma aha waa Soomaali oo dhan gogasha ayaga dhigaya ayaga wada hadli ayaga maxaan ku iraahdaa hawshooda looga dambeyn laakiin uma baahna in dad gobollo kale looga keeno waxaan rabnaa hadalkeena inaan ku soo ururno annagu waxaan ku baaqaynaa nabad iyo wada jir iyo Jubbaland oo midaysan iyo in ay noqdaan waxaan wax wada leeyahay inay noqdaan mar kale waxaan hoosta ka xariiqaynaa reer Jubbaland ayay u taalaa arrinta Jubbaland waa mahadsantii aad iyo aad baan u salaamayaa madaxweynayaashii iyo ahlu sharafkii ugu horeeyay oo tilmaamay waxa maanta halkan suuqaana keenay sida laga warqabo mar raba inaan badiyo dhowr qodob baan rabaa inaan taabto annaga waxa karka naga keenay inaan soo fariisano miiriyaha maanta hadalna waxa naga keenay waxa weeye madaxweynihii hore oo aan aad iyo aad u ixtiraamayno mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo sheegtay in airport laga celiyo xamar isagoo Kismaayo u soo socda madaxweynahaas ayaa wuxuu waxyaabihii uu ku doodayay waxa ka mid ahayd wax aad noo dhibay oo reer Jubbaland dhibay oo shacabkooda dhibay in uu isaga naftiisii iska hadlo oo in dhibaato loo geystay uu sheegto oo dhibkii uu ka gilgisho rabaa shacab intaasoo milyan ahna wuxuu rabaa inuu dhibaato iyo deelqaaf iyo xurmad darro u geysto rabaa respect is two way traffic madaxweyne markaad dadka ixtiraamtaad ixtiraam helaysa adigu markaad sharci dokumentigaad haysato iyo xisbigaad sheegatay aad ummadda ugu dhexaad ugu noqotid baad ixtiraam helaysa adigu markaad magacaad lahayd oo madaxweynenimo oo Soomaaliya soo xukumaysay aad ummadda ku ixtiraamto baad ixtiraam helaysa adiguna markaad waxa fiican iyo ummadda u wanaagsan ee wax ummadda ka khaldan aad kala garato ay hob inaad kala garanayso nin oday ah tahay sheekh ah tahay waliba dalka soo maamulay waxa dadweynaha Soomaaliyeed oo Jubbaland degan waxa u xun oo dhibaya markaad garatid baadna waxa ku xun ku dhibaya la garanaya oo lagu ixtiraamaya
madaxweyne annagu aad ku ixtiraamaya runtii dhammaanteen oo dhan waxaad tiri maxaa la iiga celiyey Kismaayo xaq baan u leeyahay inaan Kismaayo imaadaa tiri walaalow xaq baad u leedahay inaad timaadid xaq miyaad u leedahay inaad Kismaayo timaadid ayadoo Kismaayo iskhilaafsan oo Kismaayo dadkii shacabka ay kala tageen oo maamulkii Kismaayo ka dhisnaa lagu kala tagay oo la boobay ayadoo 6 bilood la qayrinayo leeyahay war waxaan iyo waxaan ka daayay leeyahay ayadoo leeyahay waxa la dalbanay ay wax aad u kooban yihiin oo leenahay walaalayaal oo miiska soo saara doorasho xor xalaal la gala leeyahay ayaa la marooqsaday ilaahay wuxuu nafarayaa ummadda iskhilaafaan oo walaalo meel wada joogo khilaafaad ka dareentaan fa aslihu baynahuma nin culimo ah tahay waliba islaax baa laga rabaa siyaasadda iyo diinta marna waa isgalaan marna waa kala baxaan haddaad u malaysay in wax lagu khiyaamo siyaasadda waxba lagu islaaxiyaa siyaasadda madaxweyne wada raali ah islaax baan ka rabnay anagu marka culimanimadaada la fiiriyo iyo magacaagii madaxweyne marka la fiiriyo madaxweynihii hore aad tahay waxaan kaa sugaynay islaax daatul bayn inaad ahdo war raggiinaan walaalaha ah oo reer Jubbaland oo maxaa ka cabanaysaan war madaxweynihii xukunka hayeeyo maxaad samaysay waxaa la rabaa in intaas oo dhan la isu keeno kadibna aad xal ka gaarto markaad xal naga dhex weydo kadib baad go'aan qaadan lahayd ilaahay baan kugu dhaarshay adoon noo imaanin oo waxba na weydiinin inaad hadda warqad qorto Axmedooba taageerto oo haddana mid kala qorto oo dhahdo baarlamaanka waan aqoonsaday oo madaxweynihii waxaan aqoonsay Axmedooba waan aqoonsay dhahdid oo haddana waxaan ka soo qayb galayaa cali masaar ka tirahdid war inaad ku tuumanayso ummad shacab ah oo walaalaha miyadan dareemeyn miyaadan rajo ka qabin inaad biri ka tartanta meeshan miyaadan rajo ka qabin miyaadan jeclayn inaad xisbigaada la timaado Jubbaland oo dhahdo taageero miyaadan rajo ka qabin miyaad rajo ka qabin inaad biri hor imaan doonto maalmaha ka mid ah shacabka Soomaaliyeed adoo miiri hor fadhiyo lagu weydiin doono waxa soo su'aala oo jawaab u baahan miyaadan intaas dareemi karin markaad naftaada saf waxa la iga celiyay safar aad tiraahdo maxaa u socotaa maxaa doonaysaa maxaa ka soo jira Kismaayo maxaa raadinaysaa waxaan rabaa arees waxaan ku leeyahay waxay tahay inaad xisaabta si fiican isugu geeysan ka rabaa oo nimanka walaalaha oo kula xisbiga ah ay kula taliyaan oo qofka markuu wax sameeynayo waxa la rabaa inuu xisaabtamo oo ka fiiriyo dhinaca fiican dhinaca xun waxaad ku dandoonaysaa waxaad leedahay waxaan ma aqbalayno waxaad wadaan madaxweyne farmaajo iyo hebelow stop baad leedahay amar baad bixinaysaa mar waxaad leedahay jabhad baan ahaan jiray ma waxaan ku dhahnaa oo madaxweynaha waxaan ku dhahnaa madaxweynuhu wuxuu u dhaqmayaa qaab jabhadeed ma ku dhahnaa ceeb way ma ku dhihi karno laakiin ficilada iyo waxa ka soo baxayo wax kind of la dhihi karo waxa soo kala waay aan ka rabnaa waxa weeye madaxweyne iyo inta la midka ah oo asaga la fikirka ah oo madaxweyne Xasan Sheekh uu dambe uu horeeyo oo ay kuwa badan oo daba socda ay jiraan waxaan leenahay war Soomaali baatiin Soomaali baan nahay gobolkan waa la wada degan yahay wax khaldan baa ka dhacay war maslaxa gala oo dadka isu keena oo magaciina iyo sharafkiina iyo maamuuska dadku dhex leeyihiin nooca fiican oo adeegsada waxaan ka soo horjeednaa dawladda Soomaaliya ka soo horjeednaa shacab malaayiin waa dardaraya maxay tahay markaad dardaraysa annaga soo dad bani aadan oo adoo kala manihin soo deegaanka anagu ma lihin bariima adan naga lahayn waxaan ku leenahay waxay taan ku soo aruurinaya waxa weeye gaabsada si tartiib ah u gaabsada qaabkaad u dhaqmaysaan joojiya waxaad wadaan joojiya ma doonayno in laga qayb galo wax la yiraahdo cali masaarna macna ma soo korinay sida ay sheegeen walaalihii ugu horeeyay laakiin waxa korinay waxay tahay qiibaha qofka Soomaaliga uu ku leeyahay isweydii war 2 milyan oo qof baa degan Jubbaland iyo intaanoo leadership-ka joogta qiimo ma kula leeyahay anaga horta ma is wareysatay markaad nin wax ka sheegayso adu maxaa geed qofka joogta adiga waxaad joogtaa mowqif ceeb ah ba joogtaa madaxweyne raali ahow waxaan ku leenahay dalka mushkilad buu galayaa dalku bilaayu aadayaa in la ii diido waa mushkilad weeye ma aqbali karno intaas leedahay walaalo anna inta kala nagu tamanin intaas in la mid ah sameeynin dadka ixtiraam wax u reeb dadka intaas aan rabnaa inaad waxaan wax soo korin inaad ku mashquulsho lama rabo wax soo korinay waxay tahay walaalnimada iyo wixii khaldan oo la saxo annaga iyo walaalkeen Axmed madaxweynaha hore xabad isuma haysano qof xabad ku ridan ugu ma jiro hadii Ilaahay idmo waadadaan asgaranayno saaxiibano ehelnahay waay waxa naga khaldanna waa laga wada hadli doonaa ama hal uu heshiiyo
ama si loogu kala baxo laakiin adiga mowqifkaad istaagayso mowqif Soomaalinimo madaxweynenimo culamanimo ha noqdo intaasaan rabaa inaan ku soo aruuriyo ma santiin assalaamu alaykum bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu marka koobaad waxaan taageersanahay walaaladay dhammaan waxay ka hadleen marka labaad waxaan u mahadcelinayaa madaxweynayaashii soo maray dawladdii Soomaaliya intii ka dambeysay dawladdii Maxamed Siyaad Barre ninkii la oran jiray muxuu ahaa Cabdiqaasim Salaad iyo Cali Mahdi waxaan ugu mahadcelinayaa waxa weeye maamulkii ay ka tageen ee dawladnimadkii ragii uga dambeeyay iyagoo ku qabsadayna maana maqlin iyagoo ka daba hadlayo oo ligliga la haystana maana arkin raggii uga dambeeyay ee maamulka muxuu ahaa ku ixtiraameen wayna ka aamuseen sidaas aan ugu mahadcelinayaa waxa aan leeyahay madaxweyne Sheekh Shariif iyo madaxweyne Xasan Sheekh waxaan leeyahay idinka oo madaxweynayaal ah oo taagan ayaa dalka Soomaaliya badii iyo dhulkii iyo cirkiiba hoostiina lagu gatay ama wax ka ogaada ama ha ka ogaanin idinka dalka mas'uulka ah mas'uuliyadu ninkay saaran tahay bayna eedu raay idinka oo muxuu ahaay taagan iyo ciidamadii Soomaaliya kala daateen oo dhismahoodii iyo wanaagoodii iyo haybadii ay geeska Afrika ku lahaayeen aad soo celin weydeen hadda raggiidii ka dambeeyay haddii ay awoodoodii ka faa'iideysteen oo ay hawadii Soomaaliya soo celiyeen oo badii Soomaaliya soo celiyeen oo ciidamadii Soomaaliya ay dhiseen oo odayaashii rataayirka ah ay ka hor dhaqaajiyeen oo saraakiil la sargaal soo martay oo yar oo dhalinyaro oo fresh ay u wada dhiibeen oo ay u soo kacayaan ciidamadii Soomaaliya siday ahaan jireen iyo haybadii lahaan jireen war waxaan leeyahay awoodii aad gacanta ku hayseen baad ka faa'iideysan weydeen inaad hadda muxuu ahaay aad daba qaylisaan fooxuma idinku tahay iska daayaan leh midda kale waxaan leeyahay madaxweyne Dani Puntland waxaad kula wareegtay si sharci aad kula wareegtay doorasho sharci oo wanaagsan oo xor ah ka dhacday Jubbaland doorasho xor kama dhicin doorasho wanaagsan kama dhicin ilaa hadda waxaan u taaganahay waxaan leenahay doorashada la soo celiyo Jubbaland doorashadeeda waa in la soo celiyaa oo si xor u dhacdaa ehel baad u tahay madax baad u tahay in aad Jubbaland aad timaado oo aad gogol nabadeed aad u fidiso oo aad wada hadal si wanaagsan aad ugu timaadaad leedahay in aad maaragtay wixii sharci darrada ahaa aad maaragtay aad budacaydin ku sii darto ama baasiin aad ku sii shubto xaq uma lihid waxaan leenahay Jubbaland sida ha u qoodin Puntland si wanaagsan oo nabad oo sharci ah oo cadaalad ku hogaami waxaan leeyahay ummadda reer Jubbaland waxaan ugu baaqayaa dhammaantood nabad baan ugu baaqayaa nabadgelyada inay ka shaqeeyaan amniga inay ka shaqeeyaan walaaltinimada inay ka shaqeeyaan inay gacmaha isqabsadaan ay ka shaqeeyaan waa run in la wada hadlo dadkii noo keenay ee dhaqanka ahaa siyaasiyiintii dhalinyaradii ardaydii jaamiciyiintii intaba waxaan leenahay waxa ay noo keeneen ee ay in la wada hadlo oo gogol nabadeed loo laabto waan soo dhaweynay mabda ahaan waan soo dhaweynay Jubbaland baana isxaalan
iyadaana walaalaa iyagaa dhib ku wada haysta taas waxaa weeye inay isu taagaan ayaan maaragtay ugu baaqayaa waxaan ugu baaqayaa dhammaan ama dalka ha joogo ama dibadda ha jooge shakhsigii Jubbaland uga sii darhaya ma ogolin inuu yimaado ma ogolin inuu hadlo ma ogolin waxaan leenahay Jubbaland ninkan wax u taraynin oo wax yeelin baan leenahay qodobka kale waxa weeye oo aan si gaar u leeyahay madaxweyne xasan sheekh markaad mas'uulka aad madaxweynaha dalka Soomaaliya dawladda federaalka aad ahayd adiga oo Jubbaland la dagaalamaya ayaa Kismaayo dhexdeeda waxa ku dhimatay 300 oo nin baa ku dhimatay madaxweyne xasan oo miyaad ilowday mise waxaad u maleysay raggaasu ka dhintay inay arintaa moog yihiin oo ay halmaansan yihiin maad u maleysay haddana ma waxaad doonaysaa intii oo kale inaad halkan aad maartay sidoo kale inaad ka samayso ma doonaysaa arinta ayada ma ogolaan hayno mana yeelayno waxaana ku leeyahay isku xisho madaxweyne Sheekh Shariif door wanaagsan baad soo qaadatay xilli wanaagsan oo Soomaaliya ay ku baahnayd baad soo baxday oo warlordski muxuu ahaa aad la dagaalantay sidaas sababteed baad ku noqotay madaxweyne taariikh wanaagsan oo fiican baad soo martay mid wanaagsan oo laga yaabo muxuu ahaa cimrigaaga inta ku dhiman inaad maartay keentana waxa laga yaabaa inay maartay dib aad u hesho laakiin waxaan leeyahay badda Soomaaliya marka la gadanay madaxweyne Sheekh Shariif oo dalka adiga mas'uul ka ah dhibaatada maanta Soomaaliya iyo dawladda Kenya isku haysata dawladdaadii markaad kursiga ku fadhiday bay dhacday ma in badii la soo celiyo oo Soomaaliya ay hawadeedii iyo badeediiba ay dib u hanato miyaad maaragtay aad diidan tahay mise waxaad rabtaa muxuu ahaayay mise waad ogoshahay su'aasha waxa weeye waxaan ku deenayaa madaxweyne Sheekh Shariif baan u deenayaa waxaan leeyahay taariikhda Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ma iloobayaan ninkii gardarro ku sameeyana way og yihiin kii wanaag u sameeyana way og yihiin ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa guud ahaan waxaan ugu baaqayaa madaxdeena shalay ummadda Soomaaliyeed ay madaxdeena shalay wakuwaas bari inay madax noo noqdaanna way rabaan cadaalad xumada hore ay u geysteen iyo tay hadda wadaana waad arkaysaan ummadda Soomaaliyeed ba u taala inaad dib dambe madax u noqon doontaan